duqeymo culus oo ka socda deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo faahfaahin dheeraad oo laga helayo duqeymahaasi imidada ay ka carareen kooxda Al-Shabaab oo halkaasi tuban muuqaalkan ayaan idinku wadaagi doonaa balse marka hore muuqaalka laag saar sina sheer garay nuguna soo beer baadsanida wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanka Laba Garas kana tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wararku waxay sheegayaan in hadda halkaasi ay ka socdaan duqeymo culus oo ay fulinayaan saaxiibada taageera dawladda federaalka Soomaaliya kana taageera dhanka duqeymaha cirka sidaan xogta ku helnay deegaanka Laba Garas kana tirsan gobolkaasi waxa la soo wariyay in duqeymo xooggan la beegsaday kooxda argagixisada Al-Shabaab oo maalmihii ugu dambeeyay halkaasi dagaal xooggan oo ku dhaxmarayay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo isku dhinac ah kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ku dhulmaaleysanayeen deegaankan waxaana hadda la soo wariyay in duqeymo xooggan la beegsaday waxaana dadka deegaanka waa la xiriirnay inuu xaqiijiyeen in kooxda argagixisada Al-Shabaab ay halkaasi ku dhulmaaleysanayay gabi ahaanba halkaasi dukum daagum looga dhigay sidoo kale kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa la soo wariyay in ay ka carareen beedadka iyo dhaawacyada kooxdaasi dagaalyahanadooda ee duqeynta waxyeelada ka soo gaartay waxaana dadka deegaanka oo aan la xiriirnay inuu xaqiijiyeen in ay maqlayaan daryanka duqeymaha ay fulinayaan saaxiibada caalamiga ah waxaana sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo aan la xiriirnay inuu xaqiijiyeen in duqeyntan ay fulinayaan diyaaradaha cirka ee taageera dawladda federaalka Soomaaliya deegaankan tiro dhowr jeer waxa uu dagaal ku dhaxmaray kooxda argagixisada Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanaya tiro dhowr jeer deegaankani waxa ka qarxay dagaal culus oo faraha looga gubtay waxaana jabkii ugu cuslaa halkaas lagu gaarsiiyay kooxda argagixisada Al-Shabaab gulufka dhana kooxda ayaa ka bilowday gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana maanta la soo wariyay in duqeymo cirka ay ku socdaan ku yaala deegaankaasi sida ay wariyeen saraakiisha maalmihii ugu dambeeyay gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ka socday guluf ka dhana oo dhul cirah oo ay fulinayaan ciidamada xoogga dalka iyo saaxiibada taageera dawladda federaalka Soomaaliya kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaana madaxa dhulka ka qaadi la maadaama diyaaradaha dagaalka ee duqeymaha fulinaya ay ka baqanayaan kooxda argagixisada Al-Shabaab isla markaana madaxa hadii ay qaadaan ay ka cabsanayaan inay duqeeyaan diyaaradaha dul heehaabaya deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale duqeyntan ka socda deegaanka Laba Garas waxa la soo wariyay in ay soo bilaabatay xalay ilaa ay maatadan halkaasi ay ka socdaan duqeymo xooggan waxaana dadka deegaanka oo ka agdhow deegaanka Laba Garas ay xaqiijiyeen in duqeyntan ay soo bilaabatay xalay saqdi dhexe kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa gabi ahaanba laga soo afjarayaa sida muuqata gobolka Shabeellaha Dhexe iyagoo lagu qaaday guluf ka dhana kooxda oo dhulay cirah dawladda federaalka Soomaaliya ayaana dhan walba kala dagaalamaysa kooxda argagixisada Al-Shabaab ee duulaanka ku soo qaaday gobolka Shabeellaha Dhexe jabkii ugu cuslaa meedad ay ka carareen kooxda ayaa halkaasi daadsan sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha xoogga dalka ee ku sugan deegaanada ka agdhow goobta ay hadda ka socoto duqeynta kuma adsantahay daawada haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka laag saarto sina sheer gareyso nuguna soo biirto mahadsanid